subax wanaagsan asxaabta. Hadda soo kacay maanta qurux aad u qurux badan ayaa jirta. Kaars oo qurux soocan xilliga aan ku arko waxaa cajaa'ib waa xaqiiqdii miskiinkan ilaahay iska jecel yahay waxaa ilaahay alisoo doonta quruxdan marka maanta fursad u heli doona insha Allah meelaha qurux badan kaars ee leedahay inaan tagno. Hadda horadan daal ku rahay gaari oo maxalliye dadka soo dalxiisay oo qofkii konton tayr laga qaado dowladda leedahay jirto. Hadda kaas meeshiis tagna waa xagaas ku sugaa insha Allah meel uu geedinka la soo wadaaga meeshan waxaa xoogaa Soomaali u eg tahay geesaha iyo markii laamihiisa u dhisan yihiin waxnan Soomaali u eg tahay dhul ma aqaan oo ay tusi doona waxaa la socdana insha Allah subax wanaagsan. Gaariga dadka dalxiiska u wadaayo oo soo wareejinayo oo dowladda ay leedahay oo khidmad yar ka qaadanaya gaarigaas oo ujeedin cars ilo zali daari rasmi xisbiyada mas'uuliyadda tirmish gaarigan dowladda iskale lacag yar dadka qaata meelaha dalxiiska waxa soo geeya dad badan sugaa meeshan waa fadhiyaan mid kale meeshan waxa meel yar shaax aad u fiican oo waxa maamo qeyr qabta iska leedahay ku yaala meesha shaax oo kaas oo arkaysa ma meesha shaax iska leedahay gaarigan istikiisana meeshan waa ciidan meesha shaax sabir duudu Anin waa magaalo qadiimi ah oo caan ku ah diimaha ilbaxnimada dhaqamada kala duwan ee hoy u soo noqotay waxayna ku taalaa xuduudda Turkiga iyo Armenia waana goobta ugu dambaysa ee calan Turki ah uu ka babanayo magaca Anin micno ahaan waxaa loola jeedaa gabadha malagga iyo wanaag iyo dagaalyahan sidoo kale meesha muuqatana waxay ahaan jirtay kaniisad waxa la dhisay 10ka ilaa 11 miilaadiyada ka hor boqortooyinkii meesha haysan jiray meelaha ay ku cibaadeysan jireen oo kaniisadu ahayd waaye waxa waa xaqiiqda dhisme aad iyo aad u facweyn waaye gudihiisa xataa waa galay waa soo arkay waxa waaye ilaa hadda dhismaha inta soo sano jiro wali ismu bedel sidiis u taagan yahay xaqiiqda waxa la yaabana awood iyo xoog ku dhisan waxa waa gaalada diinta xoog ay saareen fiir baaday dhismahan inta soo sano kadib ismu bedel meelaha ay deganaan jireen guryaha u hayn oo kuwaas fiir meelaha ay deganaan jireen burahan dhaxdooda iyo meelaha ay deganaan jireen guryaha hoodana way jabeen laakiin wali kaniisadooda way taagan tahay yani awoodda ay leeyihiin bal fiir dadka aad macna yani gaalnimada meesha ay saareen marka maanta inta soo sano kadib wax dhismay laga dhisin wulina taariikh ahaan yaa loo xifdiyaa waxa waaye waa meel taariikhda xoog u saareen haddii anaga ahaan leen waxa meeshan qolaa maqaayad ka dhisan la iska habaysan la carrada la iska dumin lahaa wax taariikh oo hari lahaa ama la soo booqan lahaa midna ma jiro marka meeshan hadda waxa waaye cid ku cibaadeysanaysa cid joogta midna ma laha cid habsana ma laha laakiin dhulkan dadkii isaga kala dumay oo soo maray iyo taariikhdeeda si loo ogaado mar walba niidi loo hayo iyo meeshan taagan tahay meeshan ay arkaysan idin muuqato waa masaajid waxaan waa miyaarad waxa dhisay Seljuuqiintii kala wareegay gaaladii boqortooyinka meesha haysan jiray 170 iyo koodii xilliga miilaadiyada xilligan maanta ay joognana masaajidkan wali masaajid ahaan u dhisay yahay waana lagu tukadaa gudihiisana waa gal doona arkaysan ilaa hadda waxa waaye masaajid lagu tukadaa muslimiinta xaqiiqda taariikh fiican oo la xusi kara u tahay in kaniisadina ay xiran tahay masaajidkiina markii ka qabsadeen kadib gaaladii la dhisay in wali masaajid lagu tukanayo yahay xaqiiqdii waa arrin aad iyo aad loo farxa
masaajid keli kuma koobna, wuxuu leeyahay view aad u qurux badan uu leeyahay. Waxa waaye hadda qoraxda dhinacaas naga haysa si fiican uma arki kartaan, laakiin waana masaajid view aad u qurxan uu leeyahay. Gudihiisana saan uu egyahay, dhisme aad iyo aad qadiimi u ah, waana aad u qurux badan. Meesha imaamka u fuulay mimbarkan waa kaas. Waxa waaye salaad wax yar ka dhiman, haddii xataa la gaaro xataa waa ku tukan doonaa insha Allah. Marka waxa waaye sharaf ay u tahay Islaamka. meeshaan waa xuduudda kala qaybisay Armenia iyo Turkiga. Meeshaas idin ujeediin hadda aad zoom soo dhaxad meeshaas ciidamada waxaa jooga Armenia jooga, calanka Armenia ka babanaya meeshaas. Baashta artiin waxa waaye xuduudda kala qaybisay ayadana waa Armenia iyo Turkiga xuduudda kala qaybisay. Yani biyahan dhinaca Turkiga waa dhinacaas kale marka u dhaafsid Armenia waa. Masaajidkii hadda fiidigiisa tusayna waa kaas. boqortooyinkii dhulkan ka talin jiray meeshaan waxay u ahayd goob dukaamaysi ah, bazaar dukaamaysi ah ay u ahayd. Si fiican haddii oo si kale u dhiga qofkii Turkiga tagay ama adduunyada meelaha kale uga kala yaqaan kuley bazaar. Meeshaan bazaar garan bazaar camal ay u ahayd Istanbul. Waxayna ahayd goobo laga dukaamaysan jiray xilligaas ilaa haddana dhismihii weli waxa waaye saameyntiisa weli aad iyo aad ay u muuqataa. Hadda bal dukaanka bal aan galna kasoo dukaamaysan bal waa fiirin in la joogo in kale. dhulka dhul noocan camal wahay waa laga dukaamaysan jiray, laakiin maanta waxa waaye dukaamaysi ma laha. Taariikh ahaan u taagay ilaa hadda kan si fiirin taariikh sharaf leh yaa meeshaan looga tagay. dhulkan asal ahaan Armenia uu ka tirsan yahay, laakiin dagaalkii loogu guuleystay kadib Turkiga ilaa hadda ka taliya. Kars waa magaalo aad ugu fiican dalxiiska, gaar ahaan xilliga gu'ga iyo jiilaalka. Dadka degan magaaladan waa dad aad iyo aad u fiican, dadkana si fiican u soo dhaweeya, aadna u furfuran, qalbiga wanaagsan. Inta badan dadka dega bariga Turkiga waa dad ku wanaagsan soo dhaweynta iyo la dhaqanka martida. Magaaladan waxay caan ku tahay jiiska ama farmaajo, sida aad u garan ogtahay. Waxaa loo diraa Turkiga magaalooyinkiisa kale dibadda iyo intaba qiimo ahaanna aad u jaban. Kars waxay ku taallaa bariga Turkiga waxayna xuduud la leedahay Armenia, waxaana ku nool qiyaas ahaan dad lagu qiyaasay 281,000 oo qof, waxayna ka kooban tahay 8 degmo, 57 xaafadood iyo 381 tuulo. Dadka degan magaaladan waxay kasoo kala jeedaan dhowr qowmiyadood oo kala duwan oo kala ah Azeri, Kafkas, Kurdi iyo Turkish. Dadka ku wada nool dhammaantood waa Muslimiin, waxayna haystaan madhabka Shaaficida iyo Shiicada. Dhammaantoodna si nabad ah ay u wada nool yihiin. Dagaalkii koowaad ee adduunka, waddan walba waddanka kale uu ka awood badan yahay ayuu dhulka qabsanayay. Haddaba si taa la mid ah, Ruushka ayaa wuxuu rabay inuu qabsado Anatolia la oran jiray xilligaas maanta ah Turkiga si dhul ballaarsi ah. Xilligaasna waxaa ka talin jiray Cusmaaniyiinta. Ruushka meesha ugu soo horeysa ee dhulka Turkiga uu kasoo galayna waxay ahayd Kars. Waxaa dhex maray dagaal aad iyo aad u qabow oo aad iyo aad u daran. Dagaalkaas waxaa la oran jiray Sarak Kamash. Dabaylo iyo baraf aad u qabow iyo agabka aan ku filnayn awgeed, kumanaan kun oo askari oo Turki ah ayaa ku dhimatay intii uu bilaaban dagaalka ka hor sababo qabowga awgiis.
xanuun weyn oo soo gaaray ciidamada Turkiga ee u soo baxay halgankii qaran 1914kii ee qabowga u dhintay ayaa ah murugo iyo xanuun aan la iloobi karin ee dalkaas soo maray.